kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Leeds ee ku taala waqooyiga waddanka Ingiriiska kambanigan iga dambeeya oo loo yaqaano First Response Group waxa uu ka mid yahay sharikadaha ugu waaweyn ee Soomaalidu ay ku leeyihiin waddanka Britain waxa uu ka shaqeeyaa wax kasta oo la xidhiidha xagga ammaanka sharikadani waxa ay ku guuleysatay sanadihii aynu ka soo gudubnay abaalmarino fara badan oo shaqadooda lagu siiyay oo waddanka Britain ay ka heleen sharikadan haddaba muddo haatan laga joogo 15 sanadood ka hor waxa aasaasay Jamaal Maxamuud Tahliil Jamaal baanu maanta kala sheekaysanaynaa kambanigiisa iyo ahmiyadda aadka u weyn ee ammaanku uu leeyahay waddanka Britain iyo shaqooyinka ay qabtaan ها جمال aad ku salaamaya walaal عليكم السلام ورحمة الله سو لما وناكسنا وكفر أحسن هاي نليد سكو كلنا مان عبسلان سودو هرت أنت أنا جودها كسوق اللي محن كتوسع يا مدام أنا كشقينا أمانك قيبت إلكترونيكين أن كنت خصني أيام روينا حكاتوسو كاميروين كأمانك قلنا كاميروين كاسو ككوبان وجهة facial recognition كا وكوا وجهك قفك ها and linked with access control وجهك kugu furaysa albaabka marka iyo number plate recognition ka iyo inta qof maanta ku soo gawaarida meera marayso dhan marka kameradan waa hoos bi u taagan inta qofka albaabka taagan ayay qabanaysaa wajigiisa qofka markuu xagga ka soo socdo midaan kala meeshan taagan qofkii meeshan soo istaaga soo ma jeedid meebaan horta temperature-ka iyo sidoo kale wajiga marka qofka meeshuu rabo ka imaan karaa maadaama takhasuskana midaas kale kor ku taalo midaan weyn car bag dhan ay security-da qaabilsan tahay halkan kamarada badan baa ku yaala Jamaal sida isaga hooseeyaan waad u jeedaa mid walba wuxuu leeyahay angle wuxuu qabanayaa baabuurka soo galaya number plate-kiisa iyo sidoo kale again another facial recognition maadaama anaga aan ka shaqeyno security-ga iyo amniga marka ugu horreysay waa inaad gurigaaga horta aad amni gareysid customer-kana aan tusno waxa aan gelino marka maadaama aan ka shaqeyno amniga waxaan amniga ka shaqeynaa security guarding iyo electronic security fire alarm system-ka anagu waxaanu nahay one of the largest electronic security company in the UK waxaan kamid weyn xagga amniga technology-ga K9 dogs-ka sida bomb sniffer dogs-ka وأيضاً أوريسا وحيابها قرحة. إيداس وحنكون one of the largest and as of today maantadan waxaan noo shaqeynayso 200 iyo 40 ya shaqo ku jirto. Okay marka soo dhawaad Cabsalan Leeds aad iyo aad baad mahadsantahay. Okay Cabsalan hadda waxaan ku gelinayaa qolka control room-keena waxaanu leenahay more than 4 control room across the country London waxaan ku leenahay afar sidoo kale waxaan meeshan lagu monitoreeyaa 120 locations and above no sorry 1200 locations wa kun iyo 200 goobood this is everything from fire alarm systems to automatic barriers and electronic securities CCTV ha noqoto barrier-ka gate-ka automatic gate-ka iyo fire alarm system-ka fire alarm-ku waxa weeye qalabkan guryaha lagu xidho dabka ka digo marka nimanka sida u shaqeeyaan iyo alarmka u soo dhacay iyo meeshan xaruntooda waan ku tusayaa ku soo dhaw gartay 1200 marka waa dhismayaashan waaweyn iyo goobaha ciyaaraha iyo dukaamada iyo kulli goobaha ciyaaraha dukaamada xafiisyada warshadaha goobaha caafimaad goobaha shidaalka lagu sifeeyo waxaas oo dhan marka xarunta waxaad ii sheegtay control room-ku inay ka mid tahay 4 xarumood oo waddanka ku leedii marka qaybiba waxay qaabilsan tahay miya area marka laakiin they still mirror each others area team waxa jiro control room oo weyn London maadaama ay waddanka ugu weyn tahay waqooyiga koonfurta England waxaan ku leenahay xafiis kale oo saan camal control room kuwaasi marka ay busy yihiin kuwana qabanayo kuwana markay busy yihiin waxa qabanayo kuwa Scotland iyo haddii halkan aan idinka tuso waxaa arki karaysaan muuqaalada kamaradaha kambanigan First Response Group ay ku rakibeen 1200 goobood ee halkan lagala socdo hawlahooda halkan waxaa ka arki karaysaan haddiiba
dee dhismayaasha aad sheegayso loo soo dhacayo ama wax ammaanka liddi kuwaya ay ka dhacayaan haddii daboo kale uu ka kaco waxaasoo dhan baa la soconaysaa ha for example hadduu fire alarmka dabka uu qayliyo intuu kusoo dhacaya ama tiimkeena kale oo dhan London ama Scotland kan ugu sokeeya ayaa wuxuu u dirayaa fire brigade kuwa oo damdamiska si ay dabka looga gaaro waxaan kaloo u dirnaa waxaan leenahay team response unit oo degan gaarada aan ka shaqeyno wadanka oo dhan tusaale ahaan haddii la jabsanayo kale ama tuugo ay u soo dhacdo markaana ayaa u report garaysa sidoo kale haddii guriga habeenka ama soo galo warshada ama xafiiskii ama bangiga ha noqoto alarmku noo soo dhaco ayaga aan wacnaa key holder qof la leeyihiin qofkaas aan weydiinaa meesha ku jira hadda tuug uu yahay waxaan wacnaa booliiska waxaan kaloo u dirnaa team response team waxaan leenahay oo response quick response unit across the country marka wadanka UK oo dhan koona ilaa koona waa ka shaqeysaa ilaa waxaa noo shaqeyso 24 baabuur saacadan kula hadlaayo yaa wadanka wareegaya iyo mootooyin waa hawl aad iyo aad u ballaaran Jamaalow marka koona ilaa koona laga shaqeynayo ammaanka ee lala soconayo dhismayaasha tirada leeg imse qof baa idin shaqeeya company-gan hadda aan maanta inuu soo booqatay Leeds waxaa ka shaqeeyo ilaa 1500 qof ilaa 1500 ilaa 2000 qof waa wadanka oo dhan miyaa markaa waa UK oo dhan from Wick Scotland meesha ku dhamaado dhulkan Ingiriiska oo dhan meesha ugu dambayso ilaa iyo Dover ilaa iyo North Wales to South Wales Jamaalow company-gan First Response Group 15 sanadood buu imika shaqeynayay ma magaaladan maanta aynu joogno Leeds baad ka aasaastay magaaladan aan ka aasaasay waxaan degnaan jiray bartamaha magaalada 15 sano ka hor gartay company-gii aad halkan ka aasaastay 15 sanadood ka hor inuu maanta koona ilaa koona gaaray wadanka Britain sidaad u aragtaa dareen sidee bay ku gelisaa wallahi marka koowaad waxaa mudaanta iska leh shaqaalaha ila shaqeeyo oo taasi ka dhabeeyay inaan wadanka dhan ka shaqeyno waa shaqo dhib badan laakiin kartideeda iyo khibradeedii iyo dadnimadeeda aan leeyahay Jamaalow inta badan ganacsiyada Soomaalidu ay ku leeyihiin wadamada reer galbeedka tusaale ahaan wadanka Britain oo kale waxay ku kooban yihiin Soomaali ka ganacsata adigu xayndaabkaas sidaad u dhaaftay wallahi markii ugu horeysay yaan waxaan go'aan gaaray inaan la shaqeysto dadka Ingiriiska aniga Soomaaliya markaan ka soo qaxay waxaan go'aanstay inaan Ingiriiska imaado then waxaan dhahay Ingiriis waa inaan la shaqeysto customer kaygana 100% waa institutionka wadanka ugu waaweyn kuweebad ka tilmaami karaysaa due to privacy law waxaan shaqeynaa dawladda bangiyada insurance-yada adduunka ugu waaweyn private pension funds adduunka ugu waaweyn we're talking here billions and ayaan shaqeynaa chemicalka dekadaha goobaha ciyaaraha oo topka ah wadankani meelaha lagu ciyaaro oo topka ah company-ga joogo Jamaalow haddaan ku weydiiyo imse jirmada haydadu marka timay wadanka UK 18 sano jiray qofku markuu doonayo sidaas oo kale inuu sameeyo company-ga saa u weyn maxaa looga baahan yahay inuu la yimaado wallahi horta waa inaan leedahay aqoontaada waa inay dhisan tahay aniga waxba meeshan ku bartay kadibna waxaan go'aanstay inaan shaqeysto intaan qof u shaqeyn lahaa aan dadaalo mid ugu muhiimsan waxa waaye inaan mar walba aad tahay qof runta dadka u sheego ilaa dadka bini'aadanka iskuma wada kartid haddaa been u sheegtid yaan leeyahay Jamaalow waxaad ii sheegtay in muddadii aad shaqeynayseen abaalmarino fara badan oo weliba waaweyn oo wadankan UK laga bixiyo shirkadiinu inay ku guuleysatay kuweebaa ka mid Absalaan waxaan ku guuleysanay aniga shakhsiyaanteeda waxaan ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay 2021 Black British Business Person of the Year taas waxa weeye ganacsadaha madowga ah ee ugu horeeya wadanka UK gaaray heerka sare ka gaaray judge-kan waxay ahaayeen dadka banking institutions sida Barclays JP Morgan waxay fiirinayaan qof hal abuur leh wax abuuray isaga isku filnaan qofna deena ana qof lacag siin ana ka iman family taajire
سويس صوصة صاري أنا صاحب ملهين فاميل ملهين نينو حاسو صاري لكن كمباني comparing to other دت كلام مدو بحجر كمباني وده billions يقارن لكن دت كود connection وحبيكو هلا أنا لكن وحنقول ما ذي self host كبلاه وكان أساسي يقصي أنا بالمرنتا and December نو حنسوق لنا top 100 company top 100 companies to watch Sunday Times London and company ذا Sunday Times watch رأيت كوجوا وين ولا كمبريتو and October last year وحنقول قرن Telegraph London أسيقا سودو كلا كان أساس هير كسر كجاري مدوجة change كسميناي أما future leadership كا وحنقوله عن short lister اللي سوقليه سنة كان EY Ernest and Young EY entrepreneurs regional finalist north of England وخف ولي كوجران حدان يمدو يوحلبو وقويجا England تذكر كجاري كان أسيقا هير كسر وترتمايو وقويجا هي south of England إن كده بدنا ودنك وحاول ترتمي UK wide كواسنا سنة كان اللي وصل دري short list وبروجرام عادي مهم واحد وبروجرام هذا دتك high net worth individual private institution كا فنكريان قف كي ماذا كان أسدا. إن وحيابها مركز التي قليل مركز بالجديدة اللي بحنايو جماله مكملتها هي إلا أجو شقابور كوكلا. شقابور كوا ميت كومهم سن أنو حناي كمبني ذا دتك أدك وشقيان SME قال ده أما سا كمبني ذا وين ودتك شقابور كأيانو نهاي دولتنا العقد بدنا عشورة مليون سنة كسينا عشورة مركا تاسنا ولا فيريا أو أنا قلت تركيا مد ومهم سنوا حوي قف وليبو هنا كنتنا سوسو ولا رقمه إلا كوني شن بقول أو فاميلي يعملوا كنا مركا كوني شن تاس بقول أو فاميلي من مشاركة ده هلان إني حقه ده هلان وإن سجودت وإن تكفر كرتمات أنا قف بشقد وإنه شقيس كصباح ما نمشي قفك وحنقول ده دم بهدو سمايو ما هنا دم أنا جالكش كوني شن تاس بقول أو قف دم ككش مركا سوري أساسا قفك شقد وقع عيرنا كي شقيس كصباح بحواي سي dadkaas oo dhan ay meesha ugu helaan maciishadooda noloshooda jamaal wali waxaad tahay nin dhalinyaro ah inaad heerkan ku gaadhay adigoo da'daadu intaa tahay sidaad u aragtaa wallahi aniga horta dhalinyaro mihi aniga waxaan u arkaa inaan ahay nin weyn oo oday Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed aan ahay laakiin waxaan aaminsanahay weli waxa aan soo wado inay ka weyn tahay meesha hadda ka imaado qofka tusaale ahaan Soomaaliga ah ee dhalinyarada ah ee maanta jooga daadii aad kambaniga ku bilowday ee doonaya inuu halabuur sameeyo kambanigan oo kale uu sameeyo maxaad kula talinay wallahi waxaan kula talinayaa Soomaalida waxa aad jeceshahay sameey maxaan u sameyn qofkaas sameey ani maalinkaas sameeyna qof Soomaaliya ma sameyn shaqada aan galay iska daa Soomaali shaqada waxa lagu xiri jiray 10 sano 2002 gii aniga markaas aan go'aanstay inaan kambanigan waxaan filkan aan galo xafiiskan waa qayb kamid ah xafiisadeena saa ogtaa maanta waa maalin weekend oo Saturday oo maalmaha aan la shaqeyn way marka dadkii ma joogaan anigana meeshani saa u jeeda xafiiskeena waa open plan waxay ku tusaysaa governance-ga iyo sidaan u shaqeyno waxay ku saleysan tahay wax walba inay open tahay aniga kursigaas aan fadhiistaa inaan cidna waxba u qarsoonayn marka democratization-kii ayaan ka bilaabnay ganacsiga Absalom qolkan waa qolka one of our meeting rooms wuxuu ka mid yahay qolalka shirarka kan wuxuu ka mid yahay one of the awards aan ku weyn gareynay UK and as a company iyo kuwa kale oo badan saa meesha u jeedid awardskeena meeshani award kale leenahay oo qol kale awards aan gelino saan ku tusay marka kudheeda dhowr baa yaala kan waa safety-ga maadaama aanu gelino automatic gates ama barrier-ka haddii uu gaariga soo galo barrier-ka automatic uu celinaa mu istaagaya hadduu xiran yahay ma kor uma kacayo safety-ga sida boardkan ku qoran company-gan magaciisa waa kana company walba wuxuu leeyahay values iyo mission statement 15 sano ka hor guri council oo deganaa ayaan council markaad leedahay waxaad uga jeedaa guryaha dawladdu leedahay social housing ka ayaan deganaa waxaan hamiyay inaan abuuro company ku saleysan values-kayga iyo mission-kayga iyo aragtideeda marka all qof walba company-ga imaada FRG family values oo qaata we listen
markuu customerka anaga aan u tagno waan dhegaysanaa, then we respond, then we deliver. As you can see the color and redka waa markuu qofka customerkii uu de meeluu joogay meeluusan ogeeno stress wax ku jiro u baahan yahay wax ka gato. markii aan we respond, we respond, wixii baan u dirnaa, it goes around to amber. markii wixii aan qabanno wuxuu rabay green buu aan u noqdaa. marka this traffic light systemka wuxuu ku salaysan yahay values keena oo mission kan. valueska markaad leedahay waxaad uga jeedaa Jamaalow soo maaha waxyaabaha dee aad ku hamiyeysaan ee doonaysaan inaad gaadhaan waxa weeye haddaan mar kale ku celiyo in aad dhegaysataan macaamiishiina iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan ama ay doonayaan in loo qabto, dabadeedna aad shaqo ahaan ka jawaabtaan baahidii marka dambena aad hawshii u qabataan. waa sax, si fiican aad ugu sheegtay af Soomaaliga, and absolutely is how you've said, and saas weeye. laakiin anagu these values kan ayaa noo yahay cornerstone keena. and value qof walba oo gala FRG family waa arkaysa hadda LinkedIn social media anaga malin Facebook iyo waxaas ma isticmaalno, waxaan isticmaalnaa LinkedIn businesska. you see our values, we always talk about values, and saad og tahay values wuxuu ka imaadaa guriga and companyga waa guriga camal. ilaa qofkii dadka guriga companyga maamulayay hadduusan values lahayn sidoo reerkiisii ilmihiisii iyo xaaskiisii ula dhaqmaayo. marka alxamdulillah ilaahayna wuu nagula garab galay. maanta meesha aan joognaa ilaahay baan mahad ugu sameynaa, ilaahay baa mahad iska leh. marka la isku qaado hawlaha ammaanka inteeba u kala baxaan? Cabsalaan securityga waa field weyn horta. securityga waa cornerstone-ka horumarka waddanka. securitygu wuxuu leeyahay qaybo kala duwan, maaha waardiye bas oo qof meel la taajiyo. sidaan kuu sheegay fire alarm systemka wuxuu ka mid yahay securityga. guriga hadduusan lahayn fire alarm systemka horta waxaa dhacaya wixii Grenfell ka dhacay oo kala camal. electronic security aanu qabanaa. eeyaha bombka ama drugska, sniffer dogs iyo cyber security laftarkiisa electronic ama IT-ga isticmaalaysid. cyber security waxa weeye computerada iyo waxyaabaha la xiriira in amaankooda la ilaaliyo oo aan la jabsanin. marka security waa field weyn oo very important the economy and the economy well-being of the country. waddanka dhaqaalihiisa ayay waxay u tahay shay muhiim ah. for example meelaha lagu ciyaaro waa waddankani footballku waa big business. maalin waxa laga yaabaa 94,000 inay garoonka soo galaan. 94,000 waxa walbo ciyaar suuqa ka buuxo iyo wax walbo oo dib wado. marka security wuxuu ka ciyaaraa qaybta ugu weyn ayuu ka ciyaaraa. budgetka ugu weyn way ku bixiyaan. ciyaaraha kale oo aad soo hadal qaaday Jamaalow, khaasatan footballka garoomada lagu ciyaaro waa ilaalisaan soo ma? garoomada waddanka ugu waaweyn iyo train stationada ugu waaweyn London magaalada ka imaatay waana ilaalinaa. waxaanu ku ilaalinaa systems iyo dadba intaba. Jamaalow waxaan ka warhayaa in Soomaalidu ay aad ugu badan yihiin xaggan security-ga iyo shaqooyinka la xidhiidha. imisa Soomaaliya ku shaqeeya? Cabsalaan anigu waxaan ninka ugu horeeyay company security UK oo Soomaaliya sameeyay. saan kugu sheegay waxaa ii soo shaqeysay 10,000 oo Soomaali ah. haddadan xaadirka I think waxaa ii shaqeysaa umaleynaa 500 ilaa 600 maadaama aan Soomaali ahay. markii ugu horeysana uu ahaa inaan dadkayga shaqo u abuuro, anigana aan shaqo helo. still priority waxaan siiyaa dadkayga Soomaaliyeed. ilaa 500 oo qof oo Soomaali ayaa ka biisho 500 oo family sida maanta oo xaadirka across the UK. ilaa 15 years kan waxaa ii soo shaqeeyay Soomaali badan oo ciidda ka badan ilaa 10,000 oo Soomaali gaarayso. qaar badan waxay ku noqdeen waddanka Soomaaliya, qaar waa xildhibaano, qaar waa wasiiro, iyo Afrikaan badan, Asian badan, dad qaar waxay noqdeen safiiro ayagoo arday ah ay shaqeyn jireen way noqdeen. marka dad badan ayaan ku faraxsanahay inaan dad badan soo aan gacan qabtay. qaar ay dhaqaatiir yihiin, UK ka yihiin ayagoo arday aan shaqo siin jiray. marka wax badan ayaan aaminsanahay inaan ummadda taray gaar ahaan Soomaalida iyo dadka ajnabiga ah, Afrikaanka iyo Asiaanka sida Pakistaanta iyo Hindida.
jamaalow sida magaca ka muuqata First Response Group waxa weeye sharikado shaqooyinkooda ay isku xidhan yihiin laakiin mida hawlaha kale ay qabataan marka laga tago xaggan ammaanka maxaa ka mid ah Absalan First Response waxay leedahay company kale oo qaybta mechanical electrical ka ah mechanical we mean gas air conditioning and heating electricals kana korontada company kale First Response leedahay waa one of the largest maintenance of wind farms wind farm wadqana korontada laga dhaliyo hawada ama solar farms company korontaan leenahay marka waa qaybo kale engineering aan leenahay marka a lot of company ka shaqeysa waxaan kala leenahay risk management business sida aan ku sheegay company-ga adduunka ugu weyn ee insurance-ka ayaa waxaan u nahay partner Europe wide risk managing their portfolios Jamal aad iyo aad baad u mahadsantahay intaasna waxa ku dhan barnaamijkan oo idinka imanayay magaalada Leeds ee ku taala waqooyiga Ingiriiska barnaamijkina intaas ku dhayay intaynu dib u kulmayno nabadgelyo